السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فاميلي and friends وانا دي السلام يا وقت كستا إيا ساعة كستا إيدي تهي إيا جوي كستا أدكو جرتان وحانا دير رجينيا بشبشي برواقو وقلب حدا ووقت الروب دا أيو جوغو آدي أيو قروح بدن يهي وحانو صدوبي كليب كان وحان ربا إنان إدن لو داغو أرين يرو آدي إيغا يابسي إد الله لعدي عرقتين أي آدي ولا يابتي أدك إنتو دي بدن فجأ يارقاق كوردي ayaan rabaa inaan idinkana idinla wadaago maybe inaad ka fikir duwanaataan inaad si kale u aragtaan inaad xal keentaan waxan lagu sameeyo ayaan idinla wadaagayaa clipkan sababtoo ah markii dhinac loo eego waa serious dhinacdii loo eegana maybe qof allaale qofkii sameeyay inuu ugu talagalay wax xagga dhanka wanaaga ah oo aanu u samaynin dhan xun but we never know wuxuu yahayba dhan xunna waa loo arki karaa in qof wax lagu sameeyay balaag maajiga uu yahay aniga kolley ma aha laakiin waa wax qofkaasi macne uu u gashaday derbiga sawirkaas kolley macne ayaa ugu jira marka waxaan rabaa idinkuna inaad ila aragtaan bal ila yara daawada ka yaabay gurigan soo degay walaalayaal madax baa ku yaala jikada waxaan soo madax ma aha mise waa indhahayga wax kalena halkan ku yaal waxa kale ma garanayo wuxuu yahay laakiin waxani waa madax walaalayaal waa madax laba indhood sankii timo bisbisa muxuu yahay gurigan madaxa ku dhex jiro aawud billahi min shaytaan rajiim tala waa maxay waa madax anu madax baan u arkay idinku maxaa u aragtaan bal idinkuna ii soo sheega waxaad u aragtaan ama maana indhala waa madax halka soo taagan bisinka alifka waa jabinaya talo hadaan jamiya ama xiga soo raacaan waa jikadaydii waxaan halkaas ku jira kabarkay meesha saabuunta weelka la gashado sponjigeedii wixii buu ku agyaala I don't know ma fahmin anu waxan war bal idinkuna waxaad u aragtaan ii soo sheega bal insha Allah waad aragteen bay ila tahay aad iyo aad baan uga bogateen cid allaale cidii sawirka aragtay aad iyo aad ayay ula yaabtay aad iyo aad bayna ula anfariirtay waa wax aad iyo aad loola yaabana sidaad ogeydeenba waanigii guuray bishii 7 bilowgeedii 2 week markaan deganaana waxaan u baxay fasax anigu waan arkay sawirka darbiga ku jira laakiin anoo si fiican u eegin ayaan dhoofay waxaan u anbabaxay xagga iyo dalkii markaan soo noqday end of August September adigu middlekeedu baan sawirkii si fiican u sii eegay wuxuuna ila noqday waxaan aad iyo aad aniga laftigayga ula yaabo anigoon markii horeba serious u qaadan laakiin cid walba markay aragtay way cabsi gelisay anigu waxaan rabay inaan buri soo qaato oo aan dumiyo sawirkaas oo jajabiyo laakiin waxa la yiri ama asxaabtaydu waxay igu la talisay inaanan jajabin oo taabanin oo ugu yeero qaar waxay yiraahdeen ugu yeer kuwa guryaha qaar waxay yiraahdeen ugu yeer cid kale anyway hadii aad burburisid wax kasta kugu dhici kara maybe jin in la geliyay meesha in wax xun la geliyay oo lagu sameeyay oo hadaa taabatid adiga hadhowto effect caafimaadkaaga ay u timaado oo halka dhibaato ka soo gaadho waana wax dhici kara adduunkan hadda jira run ahaantii wax walba waa laga fishaa dadkiina evil ayay u wada badnaadeen wax xun xumaan sameeya mooyee badankoodu wax wanaag sameeya ma jiro marka bal wixii aan ku sameyn lahaa iyo sidii aan u gali lahaa ayaan idinka rabaa idinka laftigiina bal inaad tala iga siisaan waxani wuxuu yahay wuxuu noqon karo cid allaale cidii garanaysana ama hore u aragtayna ay la soo wadaagto haddii uu wax wanaagsan yahay oo nu dhibaato ii keenayn amba waan jajabin karaa oo waan burburin karaa haddii uu yahay wax dhibaato iga soo gaari kartana caafimaadkiisa ayaa aad iyo aad ula muhiimsan anyway anu ku guryaha waan wici doonaa waana u sheegayaa inay waxan iga saaraan reer ayaanu kala bedelanay sidaad ogeydeenba reerkii waan weydiiyay waxayna yiraahdeen anagu markaanu soo degnay waxan waanu ku aragnay sidaasuna ugu jiray ilaa 12 sano ee aanu meesha deganayn but I don't know qof galiyay ma iyaga ma cid kale ma cid ka horeysay ma cid ka sii horeysay ma cid we never know cid galisay anyway adigu waa waxay ogaayeen saasayna ku deganaayeen sidii ay yiraahdeen weeye ama hadalka u dhigaan wax kastana lama aamini karo lamana rumaysan karo run ahaantii laakiin cid allaale cidii aragtay sawirkaasi aad iyo aad ayay ula yaabtay
anigu noloshayda ma arag wax la sirxo oo sixir loo qabtay waan maqlay waxbaa la sirxay waan maqlay laakiin anigu madax derbi ku dhex jira meesha aad aragtaan waa jikadaydii waxaan meeshay ku samaysan yihiin waa jikada ma garan karo maxaa loogu sameyn waayay talo qolalka hurdada ama fadhiga muhiimadda jikada loogu dhajiyeyna kulle iyaga ayaa garanaya dadka qaar waxay u arkeen weji ilmo yar aniguse waxaan u arkay weji xagga dambe markaad eegtid sawirka waxaad moodaa in hadh sidii wax madmadow ama timo loo sameeyey oo kale oday weyn oo xagga horena bidaar ku leh xagga dambena timo yaryar ku leh ayaad moodaa sawirka ilmana waa u egyahay run ahaantii waxani ma aha wax lagu ciyaari karo ama wax laga dhigan karo qosol ama si fudud gacmaha loola geli karo waa wax u baahan in aad iyo aad looga taxadaro mar walba quraanku iskaga keeshidan yahay nasiib wanaag taan maqanahay xitaa intaan sii shido ayaan iskaga tagaa laakiin waxani waa cabsi noloshayda ma arag madax guri ku dhex jira madax totally waa madax wax kastan wuxuu yiri waa madax marka bal asxaabay kii hore u arkay waxaan oo kale ha ii soo fasiro ama wadaadada waxyaalaha fasira waxana wuxuu yahay iyaguna ha ii soo gudbiyeen bal talooyinkiina iyo fikirkiinaba waxaad iigu reebtaan xagga hoose iyo commentiga insha Allah taala aad iyo aad baan idin salaamaya ilaahay xun hanaga qabto wixii shar iyo balaayo la wareegayana iyaga Allah ku celiyo ayaanu leenahay mar walba ilaahay ayanu kaga hoos jirnaa dhibaatada bini'aadanku aad iyo aad ayuu u dhib badan yahay waxaan idinka sugaaba waa taladiina iyo fikirkiina ee quruxda badan ee mar walba dadkiina la garab taagan tihiin aad iyo aad baan idin salaamaya waqtigu ha idin wacnaado ayaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba sidaa iyo nabadgelyo